Somaliland مرحبا بكم كسر دواو إيجار international كسر دواو welcome Somaliland أهلا وسهلا Somaliland مرحبا بكم كسر دواو إيجار international كسر دواو welcome Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال waxaa ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo idinka diyaarinay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi oo tababar muddo laba toddobaad socon doona u furay qaar ka mid ah shaqaalaha airportka caalamiga Cigaal International Airport gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeeya waaxda ammaanka ama security-ga barnaamijkana waa kan daawasho wanaagsan daawadayaal maamulaha madaarka maamulaha taliska guud ee ciidanka booliiska aaga madaarka ama masalaha taliyaha immigration-ka naasha shaqaalaha security-ga halka fadhiya saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta halka waxaynu isugu nimid furitaanka tababar kor loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha security-ga madaarka shaqaalaha SRM muhiimadda tababarka loo qabtay iyo muhiimadda looga danleeyay waqtigan oo waqti xasaasi ah oo amniga madaqada geesku ku sii adkaanayo sida loo xoojinayo muhiimadda looga danleeyay kulay wala inoo faahfaahin doona agaasimaha guud ee wasaaradda duulista agaasimaha duulista iyo hawada maamulaha airportka taliyaha waaxda socdaalka iyo taliyaha shirkadda SRM inta kadib waxaan mahad gaar ah kan uga soo jeedinayaa wasaaradda duulista iyo hawada oo mar walba ku hawlan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta iyo tayada 2016 inaynu ku furano tababar ku saabsan amniga madaarada tababarkaas oo ay nasinayaan khubaro ku takhasustay aviation security-ka aqoon dheeraadana u leh amniga madaarada wuxuu socon doonaa muddo 2 week ah runtii wada ogtihiin madaqada geeska Afrika iyo arrimuhu halka imika marayaan taas darteed waxaa shirkadda SRM mar walba ay ka hawlgashaa sidii ay tayada iyo kor u qaadista shaqaalaha ay kor u qaado taasoo lagaga hortagi karo khatar kasta oo inoogu soo aadan sidaas darteed kan wuxuu ka mid yahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ay leeyihiin shaqaaluhu intaas kadib waxaa kaloo intaa inoo dheer in aynu ka faa'iidaysano fursad u helno in shirkan uu bixinayo macallin aada ugu takhasusay macallin aada ugu takhasusay oo aqoon badan u leh si xeel dheerna ugu qoto jira amniga madaarada ugu dambeyn waxaa si faahfaahsan inoogu faahin doona wasiirka iyo agaasimaha waxaan idinkaga baxayaa inaad si hufan oo dhiiranaan leh uga hawlgashaan sidii aynu ugu shaqayn lahayn qarankeena Soomaaliland assalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsantahay Nawaal haddii aan tababarka ku dheeraado iyo cidda soo qabanqaabisay iyo si muhiim loogu yahay waxbayaan la dhiibsan hadalkayga waayo waxaan ka mid ahay shaqaalaha loo furay tababarka ay ka faa'iideysanayaan training-kan waxaan u yeerayaa imika agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada gaadiidka cirka Cumar Cabdilaahi Aadan kusoo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ugu horeyn wasiirka wasaaradda Cismaan Cabdilaahi Saxardiid agaasima waaxid Xuseen Mahdiilaye duulista maamulaha madaarka taliyaha laanta socdaalka immigration-ka Cabdi Salebaan taliyaha rugta saldhigga madaarka iyo masalaha Saalax Aarshe madaxda shirkadda SRM ee security-ga iyo dhammaan macallimiinta iyo
shaqaalaha halkan tababarka looga furayba ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan ahmiyadda tababarka uu leeyahay security-gu nawaal baa si fiican u sharaxday. waa runtii tababaradii awalba laydiin jiray oo leveliska lahaa macnaheedu ma aha maydaan tababarnay. tababarada aviation security-gu waxa weeye waa standard la isdaba socda. advance bay leeyihiin, bilow bay leeyihiin, dhexdhexaad bay leeyihiin. waa tababaradii inoo qorshaysnaa ee ilaa bilowgiinii laydii soo waday. waxaan idinka rajaynayaa inta tababarkaasi socdo inaa si fiican uga faa'iidaysataan, waqtiga ilaalisaan, macallimiintan khibradda la idin dhigaysa ka faa'iidaysataan si aad dalkiina iyo madaarkiinaba ugu anfacdaan. berigii la aasaasayey shirkaddan ama madaarka amnigiisa mashruuca markii la aasaasayey macallinkiini ugu horreeyey David waxaa xasuusataan questionkii koowaad uu weydiiyey waxay ahayd do you love your country? dalkiina ma jeceshahay, dalkaaga ma jeceshahay? wax iska fudud baynu u naqaanay ilaa maanta tababarkeenu halkii ku socda. haddaana dalkaaga jeclayn ma shaqaynaysid, haddaana dalkaaga jeclayn shaqada ahmiyad ma siinaysid, haddaana dalkaaga jeclayn dhibta iyo daalka ma adkaysanaysid. dhammaantii dalkeenu waynu jecelahay, amnigiisaynu ilaalinaynaa. halkii questionkaa waxaynu rabnaa ilaa maalintaynu jiil kale inagala wareegayo qof walba halkan fadhiyaa inuu ka soo baxo jacaylka dalkiisa, waqtigiisa, shaqadana uu ahmiyad weyn siiyo. taas waa tababarka. waxaa la socotaan xaaladda amniga geeska Afrika halkay marayso. waxaa la yidhaahdaa wake up call. waxyaabahaas oo kale khatar baynu ku sugannahay inaynu taxadarno. qof walba feejignaan dheeraada muujiyo, hadday tahay shaqaale, hadday tahay madax, hadday tahay dadka deegaanka ee halkan naga maqli doona. dhammaanteen inaynu sidii nabadgelyada dalkeena aynu ilaalin jirnay inaynu u ilaalino. madaarku waa goobaha ugu muhiimsan ee dalkeena, waa madaar caalami ah, diyaaradaha caalamiga oo dhan baa imanaya. marka in taxadar dheeraada la muujiyo. waxyaabaha dadka rakaabka ee madaarka ka dhoofa hadday yihiin reer Somaliland, hadday yihiin dadka geeska Afrika degan, hadday yihiin dadka caalamka inooga imanaya dhammaantood waxaanu la socodsiinaynaa in baadhistii madaarada Somaliland oo dhan sare loo qaaday, in checkpointskii la badiyey, in qofka rakaabka aanu ku dhibaato aanu dib u dareemin haddii baadhitaanadu intii hore ay ka bataan. waayo xaaladda amniga ayaa qasbaysa in la ilaaliyo diyaaradda iyo rakaabkeeda. annaga ta mas-uuliyaddu naga saaran tahay waa taa. kabihii baa la iska saarayaa hadday madax tahay iyo haddii qof kastoo diyaaradda raacaya suunqaa laga saarayaa inaan la isdhibsan. waayo waxaan waa badbaadadeyna dhammaanteed. arrimihii ugu dambeeyey markii ay dhaceen muqdisho diyaaraddii daala ay ka dhaceen waxaanu soo kordhinay dhammaan liquidka wixii dareera ah in laga mamnuucay inay diyaaradaha raacaan ama gacanta lagu qaadan jiray ama shandadaha la saari jiray. liquidka haddaan aan fasilo waa biyaha, waa sharaabka, waxa weeye waa subaga, waxa weeyaan muqmada, waxa weeye wax alla wixii dareera ah ee liquid ah waxaa ka mamnuuca inay ka baxaan garoomada Jamhuuriyadda Somaliland. dadka iyo shirkadaha waan u sheegaynaa inaanay ku soo lugoyn, waayo uma diidanay awalba oo ku qaadan jiray. arrin badbaado ayaa gashay marka wixii liquid inaa garoon kala la iman. sidoo kale laptop-yada walba waa la shidayaa. laptop aan shidmay cidna garoonka kama dhoofin doonto. biraha spare part-ka waan mamnuucnay. printeriska sidoo kale waa la eegi doonaa, qalabkii baa lagu eegi doonaa. dhammaan dadka madaarada isticmaala ayaanu ku wargelinaynaa in arrintaas sidaa ula socdaan. jiha wali ka yimaadaan, waayo garoonku waa garoon ballaadhan. intaasoo caasimadood buu ku xidhayay, intaasoo kaleed baa imanaya. waa naga ogeysiis. arrinta ugu dambeysa waxa weeye diyaarad wal oo garoomada ka baxaysa waxaa lagu sameynayaa final checking. marka aad raacayso dib baa haddana loo baadhaya, iyadoo lagu soo baadhay baa dib haddana mar labaad loo baadhaya. qofkii dharkiisii, jidhkiisii, shandadihiisii, wax kasta waa la baadhaya. marka dadku inay arrintaa ku samraan baan ka rabnaa. waayo waa badbaadadeyna dhammaanteed. shaqaalahana waxaa faraya shaqadii way labalaamaysaa. intii hore qaban jirteen in ka badan baa ku labalaamaysa. inaad dadaalkiina labalaabtaan idinkuna inaad ku samirtaan. aad iyo aad baan runtii idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عبد الله آدن هذا الله سبحانه وتعالى يريد
وانا ده دردارن كا runtii shaqaalaha security-gu inta badan waa ku jiraayo haddaan xataa yara faaliyo waa laga dulqaadan doonaa laakiinse waa shaqaale in badan soo jeeda shaqaale madaarka shaqaale markaan dadka u faaliyo waxa ku waxaan nahay lafdhabarta madaarka shaqaalaha madaarka ku shaqeeyo inuu nahay in nafteena u sheegno haday shaqadu inagu liblaabato haday shaqadu inagu badato haday mar kasta inagu cuslaato waxa mar kasta inoo niyadayno dhisaysa inaynu nahay shaqaalaha madaarka lafdhabartiisiya aan ila aantood shaqadu soconayn aan hadayna joogishayn madaarku isxirayo aanu shaqaynayn oo inagoo nimaadna mooyaane cidna albaabka ma soo gasho marka wax kasta oo kugu sii kordha wanaagiisa inaynu ku eegno muhiima idinkuna waad ku baraarugsantihiin idinkaabay in badan iga soo horeysay jirtaayo ku baraarugsan waxaan u yeedhayaa imika wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Ismaan Cabdilaahi Saxardiin Cadaani oo halkan ka oran doona hadallada ku munaasabka ah training ku soo dhaweysay Bismillahir Rahmanir Rahim meel iska dhiga kan waa ya maxaa ku saartaan halka markaa حبد متاكر مد متاكرنا ما مد متاكر عولو إيه كان حبد يتاك أنجليه اسمها جودة وزارة اسمها شكله تليها أجنا من مداركه كاشان لصالح تليها إميجريشن كي مداركه عبد السليمان مدحضة SRM دي خضري دي عبد الرحمن يهين يا نوال ناشا ولي هالكم فدي رير ناشا محمود يا كمد يهين تيم كان تبرياشا runtii macallimiinta ah ee uu hogaaminayo tandaaye teamka dhan ah ee ka socda khubarada ah ee bixinaya tababarkan shaqaalaha shirkadda SRM dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka dhowr qodob baan ka hadli doonaa laakiin waxaan ugu horeysiinayaa inaanu idiin furno tababarkan saaka waa tababar socon doona muddo 2 wiig ah waa tababar loogu talagalay inuu runtii kor u qaado khibradiina ama sida loo baaro haday dadka tahay iyo haday baagaga tahayba iyo techniques kale ama hawlo kale oo la idin sheegi doono aad garan kartaan qofka wax qarinaya waxa uu runtii inuu yahay iyo sidoo u dhaqmo oo kulay ka wax ka bashbash badan qofka wax qarinaya maaragtay ama yar wax wata marka inaad iyada lafteeda waa techniques kaas oo dhan baa la idin bari doonaa ma aha tababarkii ugu horeeyay run ahaantii aad qaadataan tababaro badan baa qaadateen karano wuxuu ka mid yahay tababaradii hore caadiga ahaa aad qaadan jirteen tababar qorshaysan buu ahaa oo wasaaradda iyo shirkaddan madaxa bannaan runtii qaybna madax bannaan qaybna wasaaradda ka mid ah ay hore u qorsheeyeen waxa uu kaga duwan yahay waxa weeye xaaladda maanta ayaa ka duwan xaaladihii markii uu la qorsheeyay programka marka waqti wanaagsan ayay runtii ku soo beegantay ayuu tababarkan ku soo beegmay waxaan jecelahay inaad si fiican tababarka uga soo qayb gashaan waxaan jecelahay waan idinku dardaaraynaa discipline-kiin wuxuu ka soo baxayaa saad qofka aan tababarka ka habsaamaya shaqadan uu ka habsaamaya marka uma baahnin qofka run baan ma ka idin sheegay hadda tababarka ka habsaamayso already nimanka macallimiinteeda tababaraya waxay ka hadleen discipline-kiin imaka waan idin sheegay qofka habsaamayo ee tababarkan ka habsaamayo waxaad ogaataa inaad airport-ka ka habsaamayso jamhuuriyadda Soomaaliland aad ka habsaamayso dabadeedna aanan ku baahnayn waayo haddaad lafdhabarka tahay sida hiba sheegaysay
waxaanu doonaynaa sidii qof askariga taagan oo soo jeeda canaan maahay waa reality-ga jira weeye xaaladda maanta taagan weeyaan waxa ay tahay marka qof walba inay maskaxdiisa gasho ayaa loo baahan yahay marka waxa weeye waxaan idin kula dardaarmayaa waan idin kula talinayaa inaad ka soo dadaalkiina hadduu inuu 10% aanu 100% ahaane 110% oo ahaado waayo intiina ama dadka baaraysa ama baagiska eegaysa shandadahaas waxa laga yaabaa 180 qof inaad naftoodii ilaahay ka sokow aad waxaan ku raadaya kugu xidhantay inay nabad diyaaradda ku raacaan iyo inaanay dadkoodii ay ka tageen iyagoo nabad qabaan ku soo noqon xaaladdeenu maanta marayna waa xaalad noocaas maaha wax ciyaar iyo sheeko iyo hebel baasadan iyo caynkaas waxaanu ka hadlaynaa 200 oo qof oo Hargeysa ka baxay oo family-goodii jeclaa caruurtoodii xaasaskoodii waalidkoodii dadkii ay la soo barbaareen ay la noolaayeen iyagoo nabad kaga soo baxay loo soo sheego la yiraahdo waxa dhici kara ilaahay naguma keenay adduunyada ka dhacda maalin walba in maxaan ku raadayay jidkooda la soo ururiyo iyo lafahooda marka waxaan doonayaa inaad si fiican u fahantaan waxaan idin leeyahay ama aanu idin siinayna tababarkan la idin siinaya inaan ahayn wax ciyaar inan kasta oo arrintan eegayo aad fahanto waxa kugu xidhan waxa ay yihiin aad baan idinku mahadnaqayaa hawl karnimada aad muujinaysaan imanka iyo dadaalka dheeraadka aad muujinaysaan waxa la yiri faraska maxaa jeedalka loogu dhuftaa ma fahanti waxa weeye wax ka sii badiyo ha u qaadanina inaanu jecel lahayn inaanu ama idacabsiino ama aan wax yeelo laakiin waxa weeye anu waxaan aqaanaa wax runta kama raysto Soomaa inaan runtu waxay tahay inaan ku wada dhaqano weey waxaanu haynaana waa arrin xasaasiya waa arrimo maxaan ku raadayay dalkeena iyo dadkeena uu baahan yahay marka waxaan idinka codsanayaa waan idin kula dadaalay aad jecelahay inaad si fiican aad maxaan ku raadayay aad uga soo qayb gashaan waxaad ka barataan aydan dhinacna uga leexan oo hooyada ama aabbaha ama walaalka markuu hadduu dhoofayo أنا دلنا حريص لكوي يا تكوي أكتو إيش اللي لقوه توبري أما حاس كاجا موضي كاجا وأنا ضروري وانقرنيا ما دمي فيها بسمعنا هاي قرن منه أما ما قرن كرتيد مركل الكلام غيره هو وقف صبينا يعد هالشيء مركا إنه هالكاتشونه فرحت بين قفل بكسودوين لكن إلنا حريصة إنه كو إيجينا ما جرت مركب بارتان كتماتو وإنه بارينا قفل باقيسة كبيهيسة سون كيسة كعمها إنه مرينا إنه مدنا أولاً ما إنه وحيب لو أنقرنا يايو وحاس كي يوساكا نقول كسوة توسني ما قرنا سا أما وعبها أما وهويدي أما وهيدي مر الله مركا شغدا ku jirto waa halka fadhido wax la waxa suutiin ma jirto dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka imanaya waxay kaaga duwan yihiin ma jirto procedure-kii lagu maray ee aad lagu tababaray ninka askariga maarad ama gambare jooga waxa loogu tababaray qofka Soomaaliland soo weeraraya inuu dilo
haddii qof family-giisu noqdo ka soo weeraraya xabadu ku dhufanaya taas uu dhaartay idinkuna taa u dhaarateen waxa weeye inaad waqtiga aad joogtaan aydan qofna u naxariisanayna baaraysa taasaan halkaa kaga baxaya waxaan raacinayaa hal qodob maanta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xeerka duulista ay waxay ku celinaysaa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkaas muddo rafanay marna wuxuu gaaray guurtida uu ka soo noqonayay marna lagu celinayay imika markii ugu dambeeyay wuxuu yaalaa maanta ayaa ugu dambeysay isagoon waxba la isla afkaran waxaan ku boorinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan iyo baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood inay xeerkaasi dawladdu ku soo gudbisay ay u gudbiyaan xeerka duulista madaniga ah ee Soomaaliland waxa weeye 70 boqolkiiba 70 wuxuu ka gooban yahay shuruucda adduunka maaha madaarku dukaan qof haysto ama bakhaar qof haysto uu leeyahay madaarka waxa xukuma shuruuc international oo adduunyada oo dhamay leedahay boqolkiiba 70 shuruucdaas madaarada adduunka ilaa adduunkii oo dhan baa marayay ayaa lagu dabaqaa xeerkana wuxuu ku dabaqan yahay xeerarka maxaan ku raahday shuruucda adduunka intiisa badan boqolkiiba 30 ka soo haray inta badan waxa lagu daneeyaa danta gaar ee dalkaas uu leeyahay say doontaba ha noqotay waxaan leenahay waa xeer laga soo fikiray waa xeer danta guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland dan oo fulinaya international community-ga dadka adduunyada iyo hay'adaha ay nala shaqeeyaan ee adduunyaduna ay ku kalsoon yihiin waxaan ka codsaynaa in la baas gareeyo xeerkaas oo maxaan ku raahdaa aan soo celin xeerka qodobada ku jira waxa weeye oo baarlamaanku ay u gudbiyeen waxa weeye ogolaanshaha diyaaradaha permission-ka la siinayo oo inta badan ay ku xidheen diyaaradaha madaniga jamhuuriyadda Soomaaliland dad kale ay ka qayb noqdaan oo kala qayb galaan waxaan leenahay waa arrimo khaldan arrimaha noocaas diyaaradaha bixintiisa dalkan uu u baahan yahay diyaarado shisheeye maadaama aynu international nahay berbera u baahan Egal International Airport Hargeysa u baahan imaka diyaaradaha ka duula haday Ethiopian Airlines yihiin iyo haday Fly Dubai yihiin diyaarado kala badan oo ayaa jira oo na soo codsaday oo doonayo aan ka fikirnay inay ka duulaan hadaynu doonayno inay noqono madaarada international-ka ah ee geeska Afrika laga duulo oo dana ay ugu jirto dalkan haday tahay ictiraafkiisa iyo haday tahay dhaqaalihiisa iyo haday tahay duulimaadyadiisaba waxaanu leenahay sharaa'igu shughul kuma leh waxa ku shaqo leh dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee marka maxaan ku raadayay waqtiga jirta dawladdaas ayaa go'aamada ka gaaraysa diyaaradaha permission ka siinaya waana conflict of interest oo suurtagal maaha oo in la yiraahdo diyaarad maxaan ku raadayay dad shicib oo jamhuuriyadda Soomaaliland hageliyaan leeyihiin hal laga weydiiyo wax in diyaaradda Turkey ay iman kartay maxaan ku raadayay Soomaaliland iyo inaan iman karin waayo wuxuu ka fikirayaa de wadantiisa diyaaraddu ma fahanti dantiisa gaarka ah ayuu ka fikirayaa anagu waxaanu ka fikiraynaa waa danta guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay danta guud waxa ku jirta diyaaradaha madaniga ah oo xaq naga saaran yahay inaanu ilaalino haddaanu dawladda nahay uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xil naga saaran yahay inaanu kambaniyada diyaaradaha ugu dhamaahay kambaniyada oo dhan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka abuuray ee shaqaale ka shaqeeyo
inaanu ilaalino sidii loo kobcin inaanu ka shaqeyno sidii loo kobcin lahaa ilaalinina sidii aanay u kici lahayn taas waa xilkana saaran bay ka mid tahay xilkaa waanu miisaamaynaa waanu eegaynaa haddaanay wax dhibaataa ku lahayn waanu kordhinaynaa duulimaadyada haddii loo baahdo si maxaan ku dhahdaa airportyada dalku ay u shaqeeyaan berbero lacagta aad ogtihiin gashay baa weli waqtigan maanta xidhan berbero waad ogtihiin oo dekadii baa ku dhow 9 milyan oo qof baa jira oo Ethiopiana xagga inaga xiga waan bad lahayn dawaanu doonaynaa inaan isku xidhno dekada iyo airportka berbera si maxaan ku dhahdaa dalka Ethiopiana ay u isticmaalaan dadka bariguna ay u isticmaalaan maxaan ku dhahdaa diyaarado maxaan ku dhahdaa aanay hargeysa uun ka soo wada degine ka doonaya ama hargeysa ka soo dego burbaca ka soo dego ama berbera ka soo dego ama laascaanood ka soo dego waanu u danaynaynaa dadka maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland degan gobol walba marka waxaan leeyahay oo aan mar labaad ku celinayaa baarlamaanka waxaan leeyahay xeerka madaxtooyadu way soo celinaysaa baarlamaanka dib loogu soo celinayaa waxaan leenahay wixii dalkan iyo danta guud ku jirta ee aan danta gaar ka lahayn baarlamaanku inay ka fikiraan xildhibaanadu ayaanu leenahay annaguna taasaanu wadnaa biidmillaahi kariimna waxaanu ka doodaanu filaynaa inay maxaan ku dhahdaa arrinta ay naga aqoon doonaan haddaan intaa waxaan ku darayaa baryahan dambe hadalla ayaa socday ka soo yeedhayay dalka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya hadalla ismaandhaaf run ahaantii oo immigration-ka iyo wasiirka dawladdu ay kala duwan yihiin annaga sidaad ka warhaysaan haddaan wasaaradda dawladda nahay kama aanan hadlin arrinka waxaan uga hadlin dadka lunba ka hadlayay anagu waxaan uga hadlin macluumaad baan baadhay معلومات كانوا باريني تكلنا وانو بيا بنو عرزنا ورده ملا معقول با دولت جرته او يعني اعتراف له او شارعينو نحي waxay naga dhaxeeyeen ayuun baa oran karta dal aanay 25 sanadood xukun aanay xukumin haday badeeda tahay iyo haday barigeeda tahay iyo haday hawadeeda tahay midna aanay xukumin ayuun baa intay soo kacaan ay oran doonaan diyaarada ka digmayaan Hargeysa ama maxaan ku raahdaa ama Somaliland diyaarada kama digayaan arrintaas waxaan u maleynayaa inay iska gabagaba tahay waa iska dhamaatay waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa iyo dawladda Soomaaliya iyo caalamka adduunka oo dhanba in wax alla waxay doontaba haba yaraatee oo fulina oo ay dawladda Soomaaliya diyaarada Somaliland kaga joojin kartaa أنا جري وايو دولة الصومالية اللي عشرين الله بعطنا صلوا الله حر ودولة مدح بنان تذكير أيام مدح بنانينا مدح بنان نظام حقول هذا كعدي هذا يدل كذا تهي يهدي بدي ذا تهي يهدي هودي ذا تهي بالنبع يجا حق له يجا كتلية اتكلوا وضوا فريسانية أما كأمر قاضنية أما يدك شلق قصيرة مرنا ما جرت وحكلوا وجرته ما أنت هو ذا الصومالية النجي الصومالية أنا قاعد أحس واحد حكومة هيدا لو يقنا يكاو وهيد جمعية القرومة قاعد أحس كشق كتر سن
marka xamar horta hawada ma xukuntay ogaada iyo muqdisho iyo dawladda Soomaaliya ma xukuntay hawada labadeen dal ka dhaxeeya waxa xukuma hay'adda ICAO la yiraahdo oo gacanta ku haysa waxa kale oo jirta heshiis madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya ay galeen oo ku saabsan hawada labada dal heshiiskaas caalamka oo dhammi ay ogaayeen waxaad moodaa inay dawladda Soomaaliya ka noqotay ama ay ku rafanayso weli anagu haddaan wasaaradda duulista iyo hawada nahay iyo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo waxaanu caalamka u sheegaynaa inaanu aaminsanahay heshiiskii labada madaxweyne saxeexay haddii wax lagaga noqonayana ay tahay mid marnaba aanan ogolaanayn ama aanan aqbalayn inaanu madax banaanida hawadayada aanu dal kale u dhiibto ee aanu anagu ka mas'uul noqonayno waxaa jira ICAO principles waxa la yidhaahaa jira oo adduunyada oo dhan ay ku dhaqanto oo international rules waxaa jira Chicago Convention xeerar la yiraahdo oo adduunka diyaaradaha oo dhan dalalka adduunka oo dhan ay ku dhaqmaan Chicago Convention wuxuu sheegayaa oo cadeynaya in horumarka mustaqbalka ee duulimaadyada rayidka ee caalamiga ay keeni karto horumar saaxiibtinimo dhex marta la dalalka iyo isfahan dalalka jaarka iyo dalalka adduunyada tahayna in mar walba la kobciyo oo aan la siyaasadeyn duulimaadka diyaaradaha rayidka ah oo xitaa hadday dalalka adduunyada dagaal ka socdaan laba dal dagaal ka dhex socdaan aan diyaaradaha rayidka ee dadka sida ee labada dalalka ay isaga gooshayeen aan la carqaladayn ay sheegayaan iska badaa qaaraan jaara ama wax ka dhaxeeyaan ama maxaan ku raahdaa sheeganayeen inay walaalayihiin waxay ku tusaysaa oo ay cadeynaysaa marka Soomaaliya ay tiraahdo diyaaradiyay ka degin Somaliland inaynu laba dal kala nahay waxay kaloo ku tusaysaa in walaaltinimadii ay sheegan jireen ee adduunka u sheegan jireen ay saaxiibtinimadii ay lahaayeen dad baan ku leenahay Somaliland oo waa naga mid iyaduna inaan waxba ka jirin baad sheegaysaa ee cadaawtinimo ay ku jirto marka ay leeyihiin diyaaradaha maxaan ku raahdaa Somaliland kama degi karto oo ay doonayaan dalka Somaliland inuu noqdo dal maxaan ku raahdaa go'dooma oo runtii aan jirin annagu waxaanu qabnaa inay dad walaalaha yihiin annagu waxaanu qabnaa in dad xinaga dhaxeeyeen yihiin annagu waxaanu qabnaa inay dad jaara yihiin annagu waxaanu qabnaa kulley waxa ay yaabaha ay ku inagula kacayaan inaan maxaan ku raahdaa aan kula kicin laakiin mar labaad waan ku celinaya cid ilaahay abuurtay
oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani iyo anigu wasiirkiisii golaha guurtid golaha baarlamaanka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool midna inaanay u daba fadhiisanayn cidna jiritaanka Soomaaliland iyo horumarkiisa iyo duulimaadkiisa midnaba waxa kale oo qodobadaas u leeyihiin Chicago Convention waa in laga fogaadaa dalalka adduunka waa in laga fogaadaa waxa la wixii khilaaf keeni kara ee ku saabsan diyaaradaha rayidka ah isla markaana la dhiirigeliyaa wada shaqaynta iyo isfahanka labada dal anagu waxaanu qadnaa qodobkan inay jabiyeen oo iska dhiirigelinay ku wada shaqaynta iyo ku sameeyaan maadaama ay ka noqonayaan wixii heshiiska caalamka lagu caalamka ogaayo caalamka dhan fadhiyeen heshiisyada ay ka noqonayaan aan laba aamini karin khilaafna khasab ay abuurayso hadallada noocaasa ee ka soo baxaya maxaan ku dhahdaa dawladda Soomaaliya anagu haddaanu nahay dawladda madaxweynuhu hogaaminayo mar walba waanu tixgelinaynaa waanu aqbalaynaa sidii xiriiriyada aanu maxaan ku dhahdaa qodobada caalamiga ah ee adduunka oo dhan ay ku dhaqmaan sidii aan u daryeeli lahayn oo u kobcin lahayn anagu diyaar baan u nahay waad ka war haysaan qodobka maanta waxa Daalo Airlines ku dhacay aad iyo aad baan uga xunahay haddaanu jamhuuriyadda Soomaaliland nahay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland falka ka dhacay Muqdisho loogu talagalay in dad badan oo rayida oo wax loo xageysteen ay ku dhintaan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa badbaadiyay dadka waanu ka xunahay dadka jaarka aanu nahay Soomaaliya waanu ka xunahay runtii waxyaabaha noocaas ah hadiya habeen ku dhacaya waanu gaarsiinay maamulka Daalo colaad iyo madaxdiisa sidaan uga xunahay waxa diyaaradaas soo gaadhay iyo dibka ay ku keentay waxaanu jecelahay mar labaad inaanu si public ah aanu u sheegno sidaan waxaanu dareensanahay dalka Soomaaliya aanu ka dareensanahay ka xun hawlahaas ku dhacaya iyo diyaaradahaanba sidaan uga xunahay iyadana in mar labaad aanu sheegno ayaan maxaan ku dhahdaa aanu jecelahay waxaan jecelahay inaan kale inaan la wadaago dadka reer Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo caalamka mid walba inay waxaas wax dhici kara yihiin qodobkii agaasimaha guud ka hadlayay baarista aanu adkeynay dalka waa routine waa wax iska socda oo aanu qorshahayaga ku jirtay mar walba inaanu adkeyno sida tababarka buu qorshihii ugu jiray markii hore waxaanu ka codsanaynaa dadka muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay shuruucda dalka احتراما dadweynaha baasanjariska jamhuuriyadda Soomaaliland imanaya iyaguna ama Soomaaliya ha ka imanayaan ama meel kale ha ka imanayaan iyaguna inay u hogaansamaadaan shuruucda dalka uu leeyahay xamdoonaynaa inan nin weyn iyo nin yar
intuba markay shaqaalaha SRM ay yiraahdaan baadhayaan inay si farxad leh ay kaga qaataan baadhitaanka oo hawsha u fududeeyaan si degdeg yaani noqon mid jikaar inanka iyo inanta qaranka u shaqeynaysa ay la jikaartamaan yiraahdaan kaba saan u bixiya ama suuqa saan u bixiya ama sani diyaaradda ha ka hadhin ma kuleh haddaad nagu kalifto aad gabdhaha la kuburanto ama inamada aad la kuburanto amar cad buu qabaa taliyaha booliiska halka fadhiya ballan baan waxaan kugu qaaday inaan gudaha ku dhigo adigoo la murmay haddaan ku arko shaqaalaha waxaan ku dhahdaa airport ka jooga cid alle cid aad doonto noqo amarkoodu waa inuu socdaa iyaga qaran ku yigmadeen baagaga iyaga qaran ku yigmadeen maxaan ku dhahdaa dadka ay baadhayaan waxaan u haysanaa qofka is hortaaga inuu yahay qof hawlaha qaranka is hortaagaya marka danta ummadda ku jirta waxa la yiri waxa umusha u dani ilmahana waa wada waxaan leenahay walaalayaal si aanu nabadgelyada u adkayno oo aan u adkayno annagu la kaashayna ilaahay baa mahadale mar walba wixii amaawiira ee shuruuca ee la dhigay inaad maxaan ku dhahdaa aad aqbashaan oo sideeda u qaataan noqdo waxaan kale u sheegayaa dadweynaha Soomaaliya ka imanaya maanta diyaaradaha badan hadday Carabaa ka imanayaan iyo hadday Djibouti ka imanayaan iyo hadday gobolada Soomaaliya oo dhan ka imanayaan waxay soo maraan madaarka Cigaal International Airport Hargeysa waxaan u sheegayaa dadka reer Soomaaliya yaanu jaarka nahay inay u fahmaan garoonka Cigaal International Airport ama garoomada Somaliland inuu ka mid yahay garoon koodii oo kale waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku ixtiraameynaa si aan sharaf iyo maamuus leh ayaanu ugu shaqeynaynaa waanu ugu soo dhaweynaynaa maxaan ku dhahdaa dadka reer Soomaaliya ka imanaya qof kasta oo madaarka qaba maxaan ku dhahdaa jooga ilaa maamulka madaarka madaxdiisa ilaa wasaaradda maamulkeeda oo dhan way qabaan arrintaas in dadkaas aanay dareemin inay ka duwan yihiin meel kale inay joogaan marka waxaan u leenahay maadaama marka haddaad baasaboorkaaga sidato shuruucdii Somaliland aad siday tahay aad u fulinayso annaguna waxaanu ka ballan qaadaynaa inaanu si farxad leh haddaad transit tahay inaanu kuugu sagootino haddii aad Somaliland u socotana aanu si qurux badan oo sharaf iyo maamuus iyo milge iyo haybad leh aanu kuugu soo dhaweynaa ayaan idin ka ballan qaaday waxaan kale oo sheegayaa madaxda Soomaaliya ama madaxda Puntland ama madaxda goboladaas ee transitka ku ah maxaan ku dhahdaa airportka Cigaal International Airport iyagana waxaanu ula macaamilaynaa sidii madaxda adduunka aan ula macaamilo wixii xisaanada ay leeyihiin baanu siinaynaa VIP dan u fadhiisinaynaa inta diyaaradoodu ka dhacay maxaan ku dhahdaa ka baxayso iyagana sharaftooda iyo maamuuskooda iyo haybadooda ay dalka ku leeyihiin mid la mid ayaanu siinaynaa sidaan u siino madaxda Djibouti madaxda Ethiopia madaxda Europe iyo America ka timaada waxa la waxay ka duwan yihiin ma jirto madaxda Soomaaliya haddaynu nahay maxaan ku dhahdaa dalka Somaliland ee jooga marka iyagana waxaan leeyahay waxay naga dhaxaysa laba dal oo jaar ah oo wada shaqeyn ka dhaxayso oo wanaag ka dhaxeeyo oo khilaaf iyo hadallo xun iyo wax fool xumi ay ka dhaxeeyaan iyadana maxaan ku dhahdaa yaani jirin baan leenahay aanu wada dhaqano waxaan kaga baxayaa tababar wanaagsan baan idin rajaynayaa waxaan idin rajaynayaa tababarkan si fiican oo buuxda anagu marmar waanu imanaynaa markuu tababarku bilaabmayo subaxii waa laga yaabaa inaan soo marno markuu xidhmayana aan soo marno waxaan idinka mahadnaqayaa inaad si fiican uga soo qayb gashaan
just want to take a minute for thanking the team who is doing this training. We are grateful and indebted for you tonight. And we hope that you come and always, it's not your first time here, but we're really happy to have you here at all times. And I know we will have more cooperation, even from country to country in the long run. But we are really grateful for you and we thank you for it. On behalf of the President and on behalf of the Somalilanders, on behalf of the ministry with which I am in charge, we really thank you for your efforts. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.